رئيس الوزراء كحجينكا أهنا وزيرك أرمها دبدا فوزية يوسف حاجي آدم. بسم الله الرحمن الرحيم. آدي آد باو مهدسنتي سودوين تديران أنيس أو سدد شرا وإنه أركينا مانتا هالكا ومرايو إنا يرون وليجي أرق صوماليا دوكسي مالي قبيالة دي واحد يسموه يعني تان حسوسنانو سلام كدب waxaan soo kacay inaan madaxweynaha soo dhaweeyo marka hore waxaan soo mahadnaqayaa gudida soo qaban qaabisay xafladan quruxda badan ee muddada dheer ka soo shaqeynaysay ee maal iyo muruq isku daray aad iyo aad bay u mahadsan yihiin anoo ku hadlaya gudida madaxweynaha galbinaysa iyo madaxweynaha baafkooda waxa kale أنا مهدنقياك دمانتين كسوق qaybgalayaasha iyaguna meelaha dhaadheer ka yimi sida gobolada dadka safarka dheer soo galay waan ku faanaya way anigu reer waxaan ahay UK waxa kale aan aad ugu mahadnaqayaa fanaaniinta waaweyn ee ugu horeeya Axmed Naaji Maryam Musal iyo inta waqti weyday caawinay halkan ka muujiso wixii ay tabacsanaayeen oo gaadaco ugu horeeyo aad bay mahadsanyihiin yadal yara badan oo la socota ku dheeraan maayo laakiin laba saddex qodob tarsan hada laguma gaaro marka lagama daba hadli karo marka maadaama gudihii wax ka taataabtay magaalada Muqdisho wax yar baan arrimaha dibadda idinka sheegaya guulo badan baa laga gaaray wadanka gudaha iyo dibadda haday nabadgelyada tahay iyo haday tahay arrimaha dibadda Soomaaliya waxay gaadhay meel maanta aad iyo aad loo ixtiraamo oo ma garanaysaa calankii maanta meel walba ka muuqdo dhibaatooyinkii inoo horyaalay ilaahay mahadii intoodii badnayd way caqabadii iska qaadnay markay noqoto arrimaha dibadda haday noqoto cunaqabataynta hubka haday noqoto maxay haytay igaad iyo hawlihii naga haystay haday noqoto اعترافكي مريكنك او inoo furay albaabo badan oo kale haday noqoto William Hague oo tagay xamar oo calankii ka taagay waxaan inta ku daraya kaliya ku dheeraan maayo waqtiga aad iyo aad u gaaban diasporada dadkiina qurba jooga ah inana ka ahay kamid ahay kana ahaan jiray mid muddada dheer dalkii sidii loogu wada celcelinayo way inoo baahan yahay aad iyo aad inoogu baahan yahay in laga daayo dhibaatada dawlad yar oo imika dhalatay oo 6 bilood jirtay waxtar iyo sida ilmo dhashay in la dhowro mooyee dib uma baahna hadii kale halkii hore aynu ku noqonaynaa inaynu midowno oo la midoobo oo jaaliyadu midowdo oo shirar qabsato oo gudiyo iska saarta loo baahan yahay ugu dambeyn waxaan idin sheegayaa safiir cusub ayaa inoo yimi Cabdullaahi Maxamed Xasan oo dhibaatadii loo qabay baahidii loo qabay safaarad isaga ma ilaahay mahadii maanta yimi oo inaga kafaalo qaadan doona ku soo dhaweeya madaxweyne soo dhawow سنتين آديات بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آد وحان أقوم أدعي يا ضدك جالية رير لندن إيو جالية كلا مراها كلا نوغي مدي مناسبة دان اسكسو آدي هلك أسر صفري آد أيو ما تسيهين ومركي لبعض هول كان عن سوي استاغو انت بنا محوس ودوين آدي آد وين أيان لبعض مربى كراكولاني مركا أنا وفدي جبا آدي آد أنهم هاد علينا وحنسي قارهم هاد علينا يا قبلها الصوماليات مروى البا يعني سودوين تيد يقدرين تعينوها أيان أما دولة ماذا
iyo dalka ay u hayaan ay aad iyo aad u ballaaran tahay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin aad iyo aad u mahadsantihiin intaa kadib waxaan rabaa si kooban waqtigu waa iska waqti dambe London safarkii hore iyo safarkan way kala duwanaayeen safarkii hore booqasho dawladda Ingiriiska ay ahayd safarkan shir caalami ah oo Soomaaliya ku saabsan ayaa halkan lagu qabtay intii muddaana laga soo shaqeynayay dabcan shirkan waxaan runtii doonayaa horta magac jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK inteedii ugu muhiimsaneed ama magaalada caasimadda deganeed maadaama ay tihiin waanan ugu mahad celiyay haddana hortiina inaan ugu mahad celiyo prime ministerka dalkan Mr David Cameron oo runtii uu istaagay Soomaaliya sidii uu u garab istaagi lahaa oo miisaankiisa iyo culayskiisa oo u saari lahaa in caalamku u soo jeesto Soomaaliya oo dib u soo eego si maxaan ku yiraahdaa Soomaaliya loo kaalmeeyo waxa laga yaabaa dad badan isweydiiyaan war anagu weligeed ma kaalmo baan joogaynaa laakiin xaqiiqada dhabta waxay tahay dalalka dagaalada sokeeya galay oo dhan oo burburka ku dhacay taariikhdooda marka dib loo eego adduunyada ma jiro dal kaligiis iska soo saaray dhibaatadii gaartay dal walba waxa uu uga soo baxay ama waxa uu kaashaday caalamku ha aadaan ama dhammaan iyo wadajir iyo hay'adaha caalamiga ah loo isticmaalo ama dalal saaxiibo ah oo gaar ah ha isticmaaleen markii ugu horeysay maaha dawladda Ingiriiska ay dal sideen oo kala burburay ay garab istaagto oo ay ka soo saarto garab istaagtay sabab u noqday in dhibaatadii uu dalkaas ka baxo kii ugu dambeeyay oo midaalka loo soo qaataa waxa ay dalka Sierra Leone waad garanaysaan meeshii ay gaartay iyo dhibaatada ka dhacday iyo meesha ay maanta ay marayso sidaas oo kale ayaa dawladda Ingiriiska oo prime ministerku hormuud u yahay go'aan waxay ku gaartay runtii Soomaaliya in la kaalmeeyo safarkii hore oo halkan ku imidayna muhiimadiisa waxay ahayday arrimahaas aan ka wada hadalno isla garanay maalintaas ayuu ballan qaaday prime ministerka in uu Soomaaliya si buuxda u garab istaagi doono waana uu ka dhabeeyay runtii 54 dal iyo hay'ado caalami isugu jira ayaa shalay isugu yimiday shirka halkan ka dhacay runtii dhinaca taageerada maadiga ah oo lacag ilaa $200 milyan oo dollar gaaraysa ka sokow oo Soomaaliya loo rays gareeyay waxa aad iyo aad uga muhiimsan midda macnawiga ah oo intaasoo dal in ay halkaasi ay ka ballan qaadeen Soomaaliya in ay diplomatic siyaasiyan iyo diblomaasiyan inay u garab istaagayaan oo ay ku garab siinayaan laakiin xaqiiqada dhabta ah maxay tahay faraska biyaha waa dul keeni kartaa laakiin ma cabsin kartid caalamku wuuna taageeri karaa lacag fara badan wuuna siin karaa qalab badan iyo maxaan ku yiraahdaa wuuna siin karaa laakiin dawlad nooma dhisi karo dawladnimada inaan dhisana annagaana laga rabaa dhowr maroo horena caalamku uu muujiyay inuuna garab istaagan yahay oo na taageerayo oo dawladnimada Soomaaliya inuu soo noqoto inuu nagu garab siiyo uu rabo uu muujiyay caalamku laakiin fursado badan ayaa naga dayacmay oo hore waxaan rajaynaynaa maanta midda aan joognaahay inay naga dayacmin haddii aan la yiraahdo haddii 22 sano Soomaaliya duruufaheeda gaarka uma saamaxaynin مثلا hal misaal haddaan ka soo qaado midnimadeeda inay ilaaliso uma saamaxaynin laakiin inta jeer maxaan ku raadayay Security Council-ka ama AU-da ama jaamacadda Carabta ama maxaan ku raadayay ururka Islaamka qaraaro cad laga soo saaro oo la leeyahay midnimada iyo dalka Soomaaliya lama su'aal lama gelin karo taas ayaa sabab u ahayd dalkeen inuuna kala burburin una kala go'goyn dawladay imaaraday yaryar aanu noqonin laakiin inta dhiman annagaana laga rabaa inaan ka shaqeyno sidii aan midnimada u keenin hadda Soomaalida dhexdeeda ayay joogtaa inay midnimadii iyo dawladnimadii
iyo dadkeena iyo dalkeena qiimihii iyo maxaan ku raahday micnihii oo caalamka ka lahaa inaan soo celino waa hawl noo taalo aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahaan sida mas'uuliyiinta kale ee dalka oo dhan waxaan ku dhaaranay kutubka quraanka gacanta u saaray in aan ilaalinayno saddex waxyaabood oo muhiim ah saddexda dalka dadka iyo diinta in aan ilaalinayno ayaan ku dhaaranay marka mid walba saddexdaas qaybood macna gaara iyo muhiimad gaara ayuu ugu fadhiyaa ummadda Soomaaliyeed iyo jiritaankeeda intaba dalka hal la ilaaliyo waxa kamid ah midnimadiisa hal la ilaaliyo dalka hal la ilaaliyo waxa kamid ah magaciisa hal la ilaaliyo yani dadka iyo noloshooda iyo qiimahooda iyo waxooda waa goonigood annagu marka dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay u taagan tahay sida ku cad yani mushkiladaha Soomaaliya ay qabto iyo baahida Soomaaliya hal la liist garay hadii la yiraahdo arin dhamaanayso oo maxaan ku raadayay meel lagu soo koobi kara ma aha sidaas ayaa markaan isku tagnay oon doodnay dhaxdeena waxaan isla garanay in ay lixda qaybood ee dokumentiga lixda tiir lagu magacaabo ku cad inay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadii halahaasi lagu guuleystay dawlad Soomaaliyeed oo dhab ah oo shaqaynayso adduunyada macna kale inay imaan karto yani amniga ayaa kooka ah ninkii fallaarta isha uga dhacday salkana uga dhacday ee isha oo aad garanaysid macnaha ay ku fadhido iyo xanuunkeeda iyo inta ay leeg tahay tee laga gooyaa markii la yiri bal horta aan fariista midda salka ku taala laga gooyo dalku fallaarta salka ku tiilay oo halaga gooyo ninkaas uu yiri waxa uu la mid ah amniga uu la mid ah hadii aanan amni la helin wax kasta oo kale lama heli karo horumar iska dhaaf yani karaamo kale iska dhaaf dadka Soomaalida isku soo noqdo iska dhaaf dawladnimo hana qaada oo dalka dhan ka hana qaada iska iloow marka amnigu wuxuu noqday fallaartii salka ku tiilay asigaas ayaan marka ugu hormarinay amniga wuxuu ka koobmaa ciidan iyo hay'ado wada jira hadii marka intaasoo isla jirtaahay nidaam iyo sharci ay ilaalinayaan oo ay dhaqan gelinayaan iyo mid ayaga qabanayo hadii aanay jirin amni ma noqonaysa waxay noqonaysaa fawdo iyo muxuu ahay xoog muxuu ahay askari qori wato oo markuu muxuu ahay wuxuu rabo ama wixii la haboon asigu marka sameeynay sidaasaan muhiimadda labaad waxaan u gelinay dib u habaynta iyo dib u qaabaynta garsoorka iyo cadaaladda marka garsoorka iyo amniga isla socdaahay waxaan leenahay wax badan iyo inta kale oo markaas ku soo xigsan karta oo daba joogta dalka duruufaha ka jiraahay waa midaas amniga laba ayuu u sii kala qaybsamaa midi waa mid amniga caamka ah oo dalkaanba meel kastoo aad marto booliiska taagan waxa uu taagan yahay in amnigu sugaya midaas waa mid caadiga amnigii la wada yaqiinay ah annagu mid baan sii dheernahay bishii February ayaa magaalada Brussels aan tagay waxaan la kulmay 27 wasiir arrimo dibadeed ee Yurub Soomaaliya iyo xaaladeedan u sharaxnay si fahamkooda uu soo degdego oo ay ciyaar u garan karaan midalan si waxaan dhahay Soomaaliya maanta waxay la mid joogtaa meeshii Yurub ay joogtay 1945 dagaalkii labaad ee adduunka markuu dhamaaday yaani dhinaca burburka dhinaca barakaca dhinaca maxaan ku raadayay dhaqaale la'aanta dhinaca baahida dadka haysa يعني maalintaas Yurub meeshii ay taagneed ay Soomaaliya taagan tahay waxaan ugu daray marka laba waxyaabood oo Yurub biligaas aanay qabin oo Soomaaliya ay dheer tahay oo dhibaato ay maanta qabta ayaa jirta waa arinta argagixisada iyo arinta burcad badeedka يعني marka qiyaas marka maxaan ku marka waxaan ugu daray Yurub biligaas kaalmay heshay wixii loo yaqaanay Marshall Planki wuxuu ku fiicnaa ku saalanaa waxay ahayd hal dal ayaa Yurub inteeda kale dhan kaalmeynay yani nidaam uu lahaa iska hal meel wuxuu ka iimaanayeen hal meel ay ka socdeen taladu xoolaha waxa kulli ka socdeen hadana marka waxaan rabnaa Marshall Plankiina waa u baahanahay hal meel inay ka socoto oo 27 dal aanay ka soconin talada
na waa u baahannahay marka arrimahaasi runtii aad iyo aad ayaguna waxay keeneen bisha September in magaalada Brussels ayada loogu qabto shir kaas oo ah bas looga hadlayo dib u dhiska Soomaaliya waxa dalalka burburay ee dagaalada sokay ka soo baxay ay galaan ee loo yaqaan New Deal ayaa muxuu ahay meeshaasi Soomaaliya ay ku saxiixi doontaa ugana maxaan ku raadaa qayb gali doontaa hadda waxa soo dhan markaan isku soo celino oo adduunkii kaalmadiisii aan u material u bedelno oo aan nidaam iyo institution iyo wax la taaban kara aan u bedelnaahay annaga ayaa marka Soomaaliya maanta kaalmo la'aan ma hayso kaalmada waliba waqtiyaysan oo degdega oo loola heelayahay ayay helaysaa marka aad iyo aad ayaa muxuu Soomaaliya u taagan tahay waxaan rabnaa dadkiinan marka Soomaaliyeed ee qurbaha joogaahi lifeline-ka ama badbaadintii Soomaaliya waxaad ka soo qaadateen qayb weyn welina waa ku jirtaan haddii ay tahay qoyska Soomaaliyeed caawa saxanka uu miiska soo saaranayo oo aad adigu qayb weyn ka tihiin haddii ay tahay tacliinta jirta haddii ay tahay Soomaaliya waxa ka jira qayb weyn ka markaan inaad xooggiina iyo caqligiina aad u weecisaan dawladda iyo dawlad dhisidda markaan inaad xooggiina iyo caqligiina ka reebtaan waxyaabo badan oo dadka qaarkiis lagu xaman jiray oo ah reer hebel hal taageero iyo koox hebel hal taageero iyo ina markaan la joojiyo oo Soomaaliya la taageero dadka Soomaaliyeedna waxay taagan yihiin intaas annagu dawladda Soomaaliyeed hadaan nahay caalamku waxaan ka qaban karno waa ka soo qabanay bilaha soo socda iyo bariyaha soo socdaahay waxaan ku mashquuli doonaa haddii aan la yiraahdo in aan maxaan ku yiraahdaa gudaha dalka iyo dadka Soomaalida dhexdiisa oo aan horay u bilownay haddaad xusuusataan ama aad wada aragteen maalintii la doortay muddo kooban gudahood intaan prime minister xataa dalka loo yeelin waxaan bilaabay inaan gobolada dalka tago prime ministerka markii la magacaabay oo xukuumadii la dhisay waad garanaysaan prime ministerka inta gobol ee uu soo maray oo dadkii uu la soo fariistay gudoomiyaha baarlamaanka sidoo kale baarlamaanka iyo wasiirada dhamaantood sidoo kale muhiimadda maxay ahayd dadka Soomaaliyeed meesha ay ku nool yihiin in loogu tago lagu dhageysto duruufahooda gaarka ah wixii lagu qaban karo lagu qabto waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado warkayga waan dadaalaynaa halka hadaf aan leenahay inaan gaarno oo aan ku riyoonaynaan waa laba arrimood wax noo dhaafsiisan labadaas arrimood iyo wax intaas ka weyn oo aan danaynayna ama aan ku ballanay ma jirto haddii aan nahay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya waxay tahay inaan aragno Soomaaliya oo mid ah iyo Soomaaliya oo degan hadafka nolosha aan leenahay waa labadaas Soomaaliya degan markaan leenahay Soomaaliya amni ahaan u degan dhaqaale ahaan u degan siyaasad ahaanna u degan iyo iyadoo mid ah oo min Zayla ilaa maxaan ku raas Gambooni ilaa raas Caseer iswada haysato oo hal dawlad la hadii la yiraahdo arintaas wax ka sokeeyo oo aan danaynayno ma jirto waxaan kaloon u haliilayno oo koox gaar iyo qof gaar waana tan safarkii hore halkaan ay mid idinku dhahay wixii Soomaaliya u roonaa Soomaalida oo dhan meel kasta joogaan u roon wixii Soomaaliya u wada roonaana labadaas ay ku kooban yihiin aan ka wada shaqeyno hanana lagu garab siiyo in labadaas Soomaaliya ay gaarto hadii aan la yiraahdo aad iyo aad u maasantiin mar kale waa idin mahad celinayaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa maasantiin